abaarta ka jirta Buuhoodle iyo deegaanada hoos yimaada ayaa sababtay in ay isu soo guuraan kumanaan qoys oo ka kala yimid deegaano kala durugsan. Deegaanka Dandan oo ku yaalo ceelbiyood riiga oo dhawaan la hirgeliyay ayaa ka mid ah meelaha ay isugu tageen dadka ka soo hayamay deegaanada fogfog, waxaana maalin walba ka caba in ka badan 10,000 oo neef oo xoolo ah oo isugu jira geel iyo ari. Waxaa sidoo kale laga dhaamiyaa in ka badan 2,000 oo foosto oo biyo ah, kuwaasoo ay qaadaan booyaduhu, iyadoo dadka reer guuraaga ah iyo tuulooyinkaba loogu daabulo meelo kala durugsan. Haddaba maamulka gacanta ku haya riiga Dandan ayaa walaac ka muujiyay matoorka kaliya ee riigani isticmaalayo. Yuusuf Sheekh Cabdi oo ah maamulaha riiga ayaa codsaday in laga qayb qaato sidii ceelkani u heli lahaa matoor labaad oo lagu nasiyo matoorkan si looga feejignaado cilad iman karta. أول لقطة ما معها أول لقطة ما هي مركز وشتيها بكاس أبين كينا بابورت بيدا كلا بحر هاي ولا قريب كبولين وفرديان مالين كنا وكاسو دير ده كاسو في هذا ركتان وابارك كسيو بيسو بورتدي أفرت كذا كتير مركز صناعي نشوف ريق أبو البلد ريق أبو هذا يكون باو أبا إلا برعو إلا قرو يا ما تكونوا صدق عيال باو بيع هو دورن حتى يتوب يورن هي كسر نقلي حكري ما كان بابورتنا هذا بيا وحيدين سكرية ويسوي كوري علاقة الجوار كتا مطور كوية أفر يا تنس على مدميو ما أنت وحالة حولها هرين كري وحالة جديد كا وآدي عاد نقول على مطور كاس وحنا بجترا وخطر بكترا وحنا وصلنا إن الدق سيد دقن نرسو جارو عاوز مطور waxgaradka iyo odayaasha deegaanka Dandan oo iyaguna dhankooda hadlay ayaa codsanaya in riiga lala soo gaaro qalab isbeer ah oo lagu ilaaliyo kan hadda shaqeynaya oo aan wax isbeer lahayn. waxaanu codsanaynaa wixii taageeraha ee dadka abaaruhu isugu keeneen ceelka kaliya ee magaalada Dandan ka qodan in wixii taakulaah ee loo awoodi karo hay'adaha maxalliga iyo kuwa ajnabigaaba inay arinta xogogaalnimadeeda hoos noogu eegaan. matoorkana haddii naloo heli karayo matoor noo nasiya waa matoorka 24 saacadood bushidan yahay. riigaas habeen iyo maalin sida qoliyii hore u sheegeen waa shidan yahay isbeer male. haddii kaasi xumaado waxa weeye dad iyo dunyaba waxa jooga halis bay ku jiraan. waxaan u baahanahay matoor labaad iyo mid saddexaadna waanu u baahanoo seefina. matoorka haddii aan gidigii la isku mashquulinina bamkan biyaha soo tuuraya oo ka ugu xumaan og ah isagana in uu u yaalo oo haddii uu kaasi fadhiisto aan markiiba lagu bedeli karo iyadana aad iyo aad ay ugu baahan tahay in meelaha la daneeyo ayaanu codsan lahayn. باقي وحويان ugu dambeeya in dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan ay soo caawiyaan riigan si loo horumarin lahaa iyo matoorka labaad si loogu heli lahaa in la raadiyo. Khadar Cawl Ismaaciil, telefishinka caalamiga ah Universal Buuhoodle.